haddii aad maqli jirtay dad dhaawac ah oo meelaha markaasi ama dalka ay ku dhaawacmeen ama gudaha Soomaaliyaba waxba looga qaban waayay aad maqli jirtay oo dal kale ayaa loo qaaday hadda arintu taawa ay ka duwan tahay oo jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa waxa ay sheegtay in uu dhintay shimbir galeyr ahaa oo dhawaan oo dhaawac jabniin ah garabka ka soo gaaray markii uu ku dhacay xargaha leyrka shimbirka ayaa ku dhintay magaalada Looyacdo oo ka tirsan gobolka Awdal ee Somaliland iyadoo loo sii waday dalka Djibouti halkaasi oo la doonayay in lagu soo dabiibo waxaana halkaasi loo qaaday kadib markii sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Somaliland gudaha Somaliland wax looga qaban waayay shimbirkaasi waa tahay shimbirkana waxaa sidoo kale la sheegay inuu ka mid yahay noocyada ka sii dabargo'aya deegaanada Somaliland wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil waxa ay sheegtay in shimbirka markaasi ay u sameeyeen dadaal walba oo lagu dabiibayo ayna Somaliland muhiimad gaar ah u leedahay markay timaado arrimaha daryeelka xayawaanaadka waxay u warantay wariyaha BBC-da Faadumo Macalin Abuukar waxa jirtay shimbirkaasi wuxuu waayradan leyrka ayuu waayr ku dhacay aduu shimbir markaa lagu qiyaasay ilaa 8 bilood buu ahaa shimbirkaasi markii uu ku dhacay haad buu ahaa markuu halkaa ku dhacay haad weyn buu ahaa markuu halkaa ku dhacay ayuu dhulka ku soo dhacay dhalinyaro yaryar oo caruura aduu ciyaal baa soo helay ciyaalkii baa meel lagu xanaaleeyo lagu daryeelo xayawaanka oo maaragtay lagu kala duwan specifically lagu sii xanaaneeyo jiitaha ama harimacadka lagu xanaaneeyo ay yaqaanaan ayay keeneen halkii markay keeneen way arkeen inaanu duuli karin way ku isku dayeen caawiyaan caruurtaasi laakiin halkii bay keeneen way soo la soo lugeeyeen way soo qaadeen halkii bay keeneen markay halkii keenana waxa joogay dhaqaatiir baa joogtay dhaqaatiirtii marka xayawaanka daweynaysay halka ku jira ayay u keeneen shimbirkii waa la isku dayay adu waa la soo sawiray waxaanu ogaanay in shimbirkaasi garab ka jabay waana loo soo sheegay waanu eegnay waxa halkan lagu kabi karaa muddaan ku haynay halkii dhaqaatiirtii ku ilaalinaysay markii aan aragnay halkaa aad loogu maartay daryeel kale u sii baahan yahay ayaa dhakhtar maartay specialization oo Djibouti jooga kaasa oo Deacon Foundation u shaqeeya kaasa yiri aniga ii keena kiibaan markaa anigu waraaqihii xagga immigration iyo wixii xagga dawladda ka dhameynay in shimbirkaasi uu xagga loo geeyay si fiican aanu runtiisa wada tagnay xaggaygu ka soo gudbay xuduudka markuu maraayay ayaa dhinacii kala waraaqa ka dhinnay intii la isku celinayo waraaqihii ayuu halkaa ku dhintay marka waxaan ogaanay waxa weeyaan halkaa daryeelka caruurta aragtay soo qaaday aan dilin keentay markii hore isu soo dhiidibay culusla soo dhiibay caruur dhalinyaro yaryar baahan caruur yaryar baahan 10 jir 12 jir soo qaaday keenay halkaa waxay ku tusaysaa markaa inay ugu baraarugsan yihiin reer Somaliland xayawaanka maanta sida loo daryeeliyo ka dawlad ahaan wasaarad ahaan aan xooga u saaray waa tahay markaa shimbiruhu waa ay noocyo badan yihiin wasiir Shukri markaa noocee buu ahaa shimbirkaasi horta haadan magacyada kale la weeyaan haadeen marka eegto Soomaalida u keena haadii marka xad mudayna ku soo yaraanayso hoos soo dhacayso marka waa haadadka waxa weey macduumka imika sii dabar go'aya maaragtay berigii hore haad fara badan buu Somaliland lahaan jirtay laakiin imika waxaad arkaysaa noocyo aad arkayso imika oo la leeyahay sii dabar go'ayana duuyaday ka sii dabar go'ay marka wuxuu ahaa haadana unique Somaliland ay maaragtay ku noola laakiin imika aad arkayso hoos dhex fara badan uu ku yimid sababo badan aawadood ayuu ku yimid waliba waxaa jirta Shukriye in tacsi aad u dirteen oo aad u soo tacsiyeyseen aad ka tacsiyeyseen geerida shimbirka horta dadku dhinacay doonaan bay runtii u qaadayaan laakiin de markii shimbir aad ku soo tacabtay isku wada daydeen runtii qofka kale uu sheegay shimbirka uu dhintay Allah waan ka xumayd la xawla marka waad arkaysaa de qorka dadaal fara badan aad mujisay ilaa caruurtii soo qaaday cid kastaba shimbirkii dhimay laakiin way jiraan shimbiro badan oo dhowr shimbirood oo iyaga qudhoodu saasoo kale ay ku dhacday aan soo qaadnay mararka qaarkood si wanaagsan inta loo xirxiro marka mid bahal ku gaarsiisan yahay maaragtay nabarka ku dhacay way jiraan maalin dhexdaas mid kale oo isaguna xanuunsaday saasoo kale wax ku dhaceen kaasoo kale oo markii la eegay maaragtay lala dadaalay markii dambe waxaanu geynay meel wax ku cuni karaan marka uu duulayay isagu laakiin duulistii dheerayd baanu lahayn laakiin markuu dhulka wax ka cuno geedku koray kan laakiin total wuxuu ahaa garabka oo dhan si weyn
uga jabay. waataa marka shimbiraha laga soo tago xayawaanadii kale ka waran iyagana daryeel nooca ma helaan? xayawaanku way kala duwan yihiin horta kuwa maaragtay saasoo kale dee lagu keeno dee meel lagu arkay lasoo qaado waxaad arkaysaa imika harimcadyadan imika Somaliland ay hayso oo faraha badan dee 100 way ka badan yihiin 100 way gaadhaan harimcadyadaas oo dhan dee mid walba ma caafimaad qabin markii la keenay qaar aad u yaryar qaar baa la keenay indhala qaar indhuhu baan wax ka arkayn qaar daciif oo aan neefsan karaynin waxaasoo dhan waa laga wada tacaalay. markaa ka waran dhaqaatiirta aqoon ahaan sidee ugu diyaarsan yihiin maaragtay daaweynta xayawaanada? si fiican maasha Allah tabaarakallah si fiican bay runtii ugu wada diyaarsan